بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها مسلمين تا ميل كستو أدجوكتان كسو دوادا برنامج كي برشدا دعوينكا إيو دين تا هذا برو oo inoo daadinaya Ustaad Qaadir Sido oo inoo soo jeedin doona sheekheena Sheekh Xasan Alwaajidi maanta waxaan baran doonaa maadaama anagu aan nahay bani aadan oo Allah subhanahu wa ta'ala uu abuuray oo bashar aan nahay ma ogsoonahay horta muxuu Ilaahay noo abuuray limaada khalaqana Allah Ilaahay muxuu noo abuuray oo koonkan noo keenay ma inaan cunno cabnaa bal su'aasha ay nooga jawaabteeda iyadoo dhaxalgal aan kaga faa'iideysano Sheekh Xasan Alwaajidi waayo waa bani aadanku waa inuu ogaadaa asbaabta loo abuuray oo koonkan loo keenay imisaa tagtay awowyaasheeni aaway waalna la abuuray maxaana loo abuuray sheekh jawaabteeda kaaga fadhina insha Allah Allah yabaarik fiik su'aashaasi subhanallah jawaabteeda maanta igu wareeganaysay ilaa shalay iyo hotel aan deganahay hotelkii waxaan arkaa dhalinyaro qurux badan oo ma sha Allah adeega ku fiican oo jikada galo wax soo sameeyo dadka u khidmeeyo say ordayaan iyo dadaalkay sameynayaan shalay marka maghrib aan tukanayay anoo maghrib salaada ku jirno waxaan arkay wiilashii qaar kamid ah wiil adeegii iyo khidmadii si wada shaqeynaya waxba isweydiiyay marka waxaan isiri subhanal malik qofka markuu shaqo ka dalbanayo oo shaqo ka rabo shuruudu haystaa shuruudiis waxa kamid ah inaadan jiis ahayn inaad xoog badan tahay inaad wax arkayso in aqli badan tahay inaad shahaado haysto wax garanayso intaasi uu kugu dooranayo horta adoo qof jiisa hadaad jiis tahay shaqo aadan ka bixi karin waxa lagu leeyahay raali noqo khayr Allah ku siiyo in dhowl hadaad tahay qof ku shaqaaleysiinay malaha ila nicamki Ilaahay wax kamid ah ka maqan marka Ilaahay nicmooyinkiisa inay diyaar kugu yihiin qofka arko uu kugu dooranayo shaqadaas shaqada maxad ku heshay waa fadli Ilaahay ku siiyo subhanahu wa ta'ala allihii abaalkaasi ku galay oo shaqadaasi ma heli lahayn haduusan ku dhimeystir lahayn nicmooyinkiisa uu markuu shaqadii ku siiyay aad shaqadii Ilaahay ku xumeynaysa ka war salaadii ka daahaysa aadan tukanin aad adeecaysid bini aadan dollar ku siinayo allihii caafimaad ku siiyayna aad hilmaantay waxaad ogaanaysaa miisaal mudan xaqiiqatan saa u fiicantaa u shaqeynayso ma sha Allah ninka shaqada oo shaqeynayso ku leeyahay niyo wax ka fiican ma laha nin fiican baa tahay maalinta xanuunsato wuxuu ku leeyahay barakallahu fiik qof wanaagsan kalaan keensanayna adiga waa xanuunsan tahay kasta hor oo qaado raali noqo shaqo kuma heen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahayna waad xumaysay subhanahu wa ta'ala abaalku ku galan waad ku jazaartay hadana ninkii aad ilaahay uga go'adana waxa weeyaan nin wixiisa baaqi noqonaya ma ahan baaqiya ka soo tagtay wax faaniya u imaatay ma kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram marka waxaan leeyahay dhalinyaradu dadka shaqeynayo salaadaha ka fadilayo يعني وقتي عملك كقيمة يعني قيمة وين سينايو وقتي صلاتي إهمامايو كنت وحويان وحهم بي وحنا وحفي عنكم بدشتين وحي في عنه إلهي سي آخرة ضع مرك صلاة هذه عبادة رأس مالك وي مرك ربي لي مرك عايدة سنكوسو حسوستي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مرك كفك أشقيني سيدتك وحي ليان والغو يسا أما ددا الضلب كودي بتدلب على غاس سجويا هوشا سبب سي تي إلهي وحول ليهي waxa weeyaan dib u dhiga marka dib u dhigto oo Ilaahay taas nidaamkaas oo sameeyso qofka marka wuxuu aaminsan markuu salaad aado in shaqada laga ceerin doono wallahi laga ceerin maayo bal qiimad yeelan doonta bal qofkaasi wuu ku jeclaan doona qasban anhu limaada li'annaka ma'a Allah waxad xiriir la leedahay allihii abuuray kana u shaqeynayso danta leedahay oo ka helaysa ilaahna uu ku qiimeena subhanahu wa ta'ala laakiin ha ku ogaado ninka u shaqeynayso inaad leedahay rabbi oo sababtiisa u nooshahay oo ku keen adduunka inaad caabudo barakallahu fiik sheekh waxaan kaloo kugu darsan lahaa inaad dardaaran aad u qiimo badan aad siiso dadka ku nool Yurub iyo America waa khaasatan dadka shaqeynaya oo shiftiga ku shaqeynaya salaadaha qaar waxa maqlay subhanallah waqti ugu helaan ilaa xilli guriga ay ka soo waxa maqlay oo qof aan wali wax la ii wariimaa waxaan dhigtay ku maqlay qof aan waraysi wuxuu leeyahay marka anaga shaqada aan ka soo rawaxno aan ku soo noqono guriyeena ayaa santi salaadood jamac inna lillahi wa inna ilayhi aan jumla u dukanayna ilaahay subhanahu wa ta'ala mar jumla ma ka yira salaadina ilaahay wuxuu leeyahay inna salata kana al-mu'minu kitaban mawqutan macnaha ilaahay waqti u sameeyay marka salaatu ala waqtiha marka salaadaha oo adiga hadii oo shifti saacada la xisaabtamayo dadka qaarna ma sha Allah Yurub iyo America nool dhamaantood maahan dadka qaarna waqtigooda ilaalsadaan way dukadaan laakiin qofkan wuxuu ku fikiraa in lacag laga gooso lacagahaas uu sameeyay darteed
ayuu salaadii intuu aruuriyo marka habeenkii guriistaba uu isku geenayo casr duhur salaad fajr maqrib hal mar aan dukada u leeyahay ninkaas maxaa dhihi lahayd ama gabadhaas maxaa dhihi lahayd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun awal waa musiiba runtii oo rabbaani ah qofkaasi wuxuu shaqeeyo ama soo galan runtii kulli ibaani maayo fi dunya wal aakhirah weligiisan dhargi maayo ilaa uu waxa weeyaan ilaahay agtiisa uu kala kulmo soo waxba u oolin marka runtii ilaahay markuu aayad suurada u horeyso quraanka soo degtay oo suurat al-baqara bidaayadeeda ilaahay markuu ka hadlay jalla jalaaluhu ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إقامة الصلاة مش حلقة ولا ريال عنق ير مركو وحفايد وحرنتهاي وويساء أنا قبل لقيها بين السحر كجرته مركو ركوع السجود وحليها محمد ووتو كذا مانتا ويلكي صلاة ووتو كذا مانتا إذا تكشد مركا إنا سجود تكشد معها وحوية إنا إقامة هيا لو باهية وقت قد إلى لست oo weyso qaado taahira sujaadada imaatada tukatid waqtigeeda ku tukato oo hay'adkeeda arkaanteeda aad dhameystirto marka ilaahay markuu leeyahay bashirin mukhbitiin alladina idha dhukira allah wajilat qulubuhum anta wardiga akhrina runtii aayadaas aad la yaabay alladhi mukhbitiin ilaahay ka warama jalla jalaaluhu alladina idha dhukira allah wajilat qulubuhum mid labaad waxay tahay والصابرين على ما أصابهم مصيبة هذا يكون عضو يكون صفران الحمد لله هبل مدهانو الحمد لله إليهينو عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته السراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون لذلك إلا للمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أدي لغاهلو مرك إلهي أيدي مقشو وقلبك ودقاقه أبشر بالخير والصابرين على ما أصابهم وحي أصيبنا أبدا كصبران هدنا والمقيم الصلاة صلاة وقت كذا تكنايو ومما رزقناهم ينفقون كل شيء بها هاتين وحي إلهي سي وحك بحنا أفر تصف هذا لا إماته dadku ilaahay u bishaariyaa ka mid noqonaysa ma sha Allah tabaaraka Allah marka walaaliya ilaahay aan ka cabsano salaadaha aan ilaalino ilaahay wuxuu noo keenay adduunkan cibaadada waxa weeyaan asaasu kulli shay raasumaalkaaga weey ku ciyaarin hanu ku gorgortamin insha Allah taala jazakallahu khayr sheekh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ku xifdiyo Allah anagana insha Allah waxaan rajaynayaa risaalada inay gaartay anagana aan gaarsiinay Allahumma fashhad ودخن قلنتي إن كربا إن شاء الله تعالى الله ودت وصنوها نونيو وحبدنا قلدن مركا إلهي سبحانه وتعالى وظيفتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كسو نسوق جارسي ومدي وسوق جارسي وإن نجودنا إن شاء الله تعالى خير إذا رجينا كفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقات كان مسلسل وائل صعد إن شاء الله